Guddiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada Somaliland ayaa warbixin ay jeediyeen ku sheegay in xisaab xidhka 2018-19 ay baadhis dheeraad ku sameeyeen iyagoo ka hor akhriyay golaha wakiilada Somaliland fadhigii maanta. Siciid Cilmi Israadle gudoomiyaha Guddiga dabagalka iyo hantida qaranka ayaa waxa uu sheegay dakhliyaadka, kharashaadka iyo sidoo kale waxyaabaha isticmaalka miisaaniyadaha 2019 iyo 18 iyo xisaab xidhkoodu inuu is yeeshay iyo in kale. Waxaanu halkaasi raaciyay soo jeedin guddi ahaan ay sameeyeen. Warbixintani oo dheerayd ayaa qayb ka midi waxay ahayd sidan. dabeecadaha miisaaniyadahaas xisaabxidhada ahaayeen oo isu dhow. talabaad, hay-adaha ay qusaynayso natiijada baadhista oo isku mid ah. hay-adaha uu ka hadleeyey in la saxo nidaamyadooda oo isku mid ah. ta saddexaad, qodobada kala soo jeedinta ee lagu maarinayo natiijada baadhista oo inta badan isku mid ah oo sanadkii hore waxyaalo taagnaa oo sanadkii dambe taagnaa ayuu natiijo ahaana ka hadlay. talada lagu maareynayana ee isla runtii in la qaato oo lagu wado dayacad iyo ugu dambayntii labada xisaabin oo isu soo gaaray golaha. qoraalkan oo 26 bog ka kooban oo qaybo badan oo ka mida iskaga mid yihiin labada bog ee laba xisaabin dooni maayo inaan igu daaliyo maadaama aad idinkuma soo akhriyaysaan caawadan inaan barbaro halka ka akhriyo. laakiin ugu weyn ee guddiga dabagalka hantidu qabato ama golaha qabato waxaa weeye xisaabinkaa waxa ka soo baxa maxaa lagu maareynayaa inay kala ka soo jeedino go-aan ka gaadho aan laga bixin. sidaa darteed haddaad eegtaan qoraalka beejyada ugu dambeeya beejka 24 adeegtaan beejka 24 qoraalka haddaad gudubtaan qoraalka ama soo qoran waa beejyada ugu dambeeya. waxaa ku qoran tala soo jeedinta guddiga ee xisaabxidhada. waxaan soo jeedinay haddii ay beegno in lagu dhaqmo oo la sameeyo 15 qodob oo 15 lagu daweynayo daldalooyinkii ka muuqday xisaabka oo inta badan antilowka warbixintiisa ku aqoontaanay warbixintiisa ugu qoray qaybaha kalena ay noogu soo baxeen annaga 17 hay-adood ee dowladeed iyo 4 gobol ee aan kormeer ku soo maray qoraysigii aan ku soo qaaday ay nooga soo baxeen. sidaa darteed haddaad iyaga qoraataan maraya idinkoo soo akhri doona qoraalka waxaan ku marayaa tala soo jeedinta oo ah habka ay u socoto doodeedna oo dhan. in xisaab xidhka jamhuuriyadda Somaliland lagu diyaariyo habka xisaab xidhka caalamiga ah waa page 24. in xisaab xidhka jamhuuriyadda Somaliland lagu diyaariyo habka xisaab xidhka caalamiga ah si loo dhaqangeliyo sharciga maamulka maaliyadda dowladda iyo isla xisaabtanka ee 75/2016. in la sameeyo diiwaanka gelimaha qaranka
oo konseynkaas uu qoran yahay qoraalka baaristu uu sameeyey hantilooru oo tilmaamaya inaan diiwaan u gaara deymaha qaranka oo faahfaahsan in la sameeyo diiwaanka deymaha qaranka iyadoo la diiwaan gelinayo waqtiga deynta xaddiga deynta iyo cidda laga galay ee qaanta iskale iyo sababaha loo galay oo magaca deymaha qoraalka xilligiisu la samaynayo mararka qaarkood deymankaa hore faahfaahintaa uu konseynka ka qabo hantilooru mayaqaan saddex in loo sameeyo macno sugan madaxdigaha kharashka lama filaanka hantilooru wuxuu konseynka ka dhigay qoraalkiisa aad ku arki doontaan isagoo faahfaahsan weydiisoo hore in aanu kharashka la yidhahdo kharashka lama filaanka ee wasaaradu isticmaalaan qaabka loo isticmaalayo iyo hagayaal loo isticmaalayo iyo baahida loo qabo iyo sida loo xisaabcelinayo mid intaba inuu konseyn xoog leh uu ka qabo qoraalka ka anagoo taladiinayno u gala afar in loo hogaansamo sharciga iyo nidaamka dabarka gudaha intee dhalo dhigta oo uu furi karo xisaab socota xisaabiyaha guud oo keliya inta badan miisaaniyadda iyo xisaab xidhiyada oo ah kuwo kala dambeeya balse xambaarsan fariin kharashaad iyo dakhli ayaa haddana intooda badan aanay caddayn isku mid ahaanshiyaha iyo xisaab xidh iskoosta midnaba $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Somaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees tayo waa Telesom ma ogtahay inay Somtel bilowday abaalmarino cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu tala gashay waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab microwave TV iyo mobilo dhammaan shirkadda Samsung ah account lacag ku jirto oo banka dahabshiil ah dalxiis aad ku degto hoteelada damal iyo waliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000 intaas iyo xidhmooyin kale oo guud ahaan 5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah ka qaybgal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama 111